waa Xasan Cabdi oo jooga wadanka Mareykanka dhowr su'aalood buu wada rabaa midda koobaad waxa weeyaan lamaanaha shaqada ma u kala qaybsantahay guriga halkaas oo ka bilaaba marka ma qayb gabadha laga rabo iyo qayb wiilka laga rabaa jira kuwa kala waa tixi doonaaye alxamdulilah mas'alada sax shaqada way qaybsantahay qaybsanaanteeda macnaheedu maaha xadkaa la isuma soo dhaafi karo maaha macnaheedu way qaybsan tahayoo wixii shaqada bannaanka ah ee xamaala wixii dhaqaala ah wixii saa ku saabsan ninkaa lagu leeyahay did الرجال قوامون على النساء بما فضل الله به بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم marka qofka ragga waxaa lagu leeyahay reerkan dhaqaalihiisi ama meel dhow ha u doono ama meel dheer ha u doono inuu xalaal ka shaqeeyo baa lagu leeyahay gabadha bil laguma laha laakiin sharcigu diidi maayo hadday hanti iyo xoolo leedahay ama dakhli iyo dhaqaalo soo galo inay reerkii ku biiriso walidaalika nabigana casan markay u timid zaynab athaqafiya markay u timid xaaska cabdillahi bni mascuud nabigu haweenku wacdiyey sadaqadii ku dhiirigeliyey cabdullaahi bay la hadasho waxay tihi cabdullaahi xoolahaygaan raba wax inaan sadaqaysto wuxuu yidhi aniga iyo ilmahaaga waa ugu mudan waxaad ku sadaqaysato waana u baahanay annaga nasi ajir baad ka heli waxay tihi waan soo hubsan nabiga soo weydiin nabiga gurigiisa alayhi salaam waxaa la yidhi waayo nabiga waxaa la yidhi zaynabaa kuu taagan ku dhahay tiri wuxuu yidhi ayu zayaanibi hiya zaynabooyinku way badnaayna waa midee waxaaskii cabdullaahi bay tiri waa loo idnay way soo gashay way weydiisay sadaqa bnu mascuudin runtii wey labaad leedahay sadaqatun wasila qaraabe xiriirin iyo sadaqaad ku leedahay halka waxaad ka garatay gabadhu hadday xoolo leedahay dhaxal bay u heli kartaa xoolo ay shaqaysatay noqon karaan dakhli si kale usoo galay noqon karaan siday kastaba ha noqotee xoolo iyo hanti hadday leedahay sax nafaqaadkii iyo waajibkii lagula xisaabtamo laguma laha macnaheedu ma aha iyadu gurigeedii iyo ninkeedii iyo ilmaheedii iyo reerkeedii inay wax ku tartay in loo diidan yahay ma aha laakiin waajibku ma aha taasi ninkaa laga doonaya gabadhu xarunteedu waa guriga way bixitaankeedu wixii aan daruuraad ahayn ninkeeda idankiisay u baahantah inuu raalli uga yahay u baahantah isagoon raalli uga ahayn ma bixi karto laa shaqo uma bixi karto walaa waxaan daruuraadka ahayn iyo waajibaad diin ahayn uma bixi karto waa inay markay baxayso ninkeeda idan ka qaadataa guriga shaqadiisu gabadhaa iskale nabig alay slam waa kii lahaa alrajulu raacin fii ahli beyti ومسؤول عن رعيته والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيته اسبوع ران ما كسو هذا اللي خدمتها gabadha guriga in lagu leeyahay sadarteed hadana waxay saastahay nabigu Aisha markay tilmaamayeen ummatul muuminiin guriga markuu yimaado kana fi khidmati ahli reerku u shaqayn jiray jikadu gari jiray weelashu qaadi jiray gurigu wax ka hagaajin jiray markuu yimaado ninka laftiisa xusnul ishra wal mucaashara waxa kamida markuu guriga yimaado haday reerku xanuunsan tahay haday daalan tahay haday maanta dhan hawl ku jirtay isagu marka hadii uu nasan yahay halo hadii uu qaban karo markuu soo galo meeshii kaga aadan inuu qaado albaab la xirayo gool la hagaajinayo ilmo la seexinayo raashin la karinayo weelal la qaadayo hawsha guriga wuxuu ka qaban karo nabiga waxay ku soo ururiyeen ummahatul muuminiin nabiga sallallahu alayhi wasallam guriga markuu yimaado kaana fi khidmati ahli reerkiisu u shaqayn jiray gurigiisu ka shaqaysan jiray oo ka adeegi jiray oo jiray asal ahaantu guriga iyo adeega gabadha iskale haddana ninka laftiisu waa looga baahan yahay guriga wuxuu shaqaya ku beerin karo inuu ku beeriyo meesha noloshu waa iskaashi waxa lagu joogana waa maslaxad ka dhaxaysa iyo mustaqbalkii in la wadaaga adduunka dadkii la isaga yimid taasi kala cadgoosi iyo halka iga istaagay halka hay soo dhaafin reerka kuma dhaqmi karo waxana waa xuquuqda iyo waajibaadka waxana waa dhaqan wanaag iyo wax istarka sidaasan dhihi lahaa cabdirasaaq billahi tawfiiq
saa'ilkii cabdi xasan